ceergaabo ninkii ka qaxaa dee isagaa ka qaxay ku soo noqon maayo ilaa dee garto nabad waxay tahay ceergaabo way degan tahay ciidamadii way ka baxeen difaaca horaa la iskula jiraa dee dagaalkuna waa iska soo noqnoqdaa waxaan la yidhaaho guushuna waa timaadaa weaknesskuna waa yimaadaa hadda somaliland guul bay joogtaa hadda somaliland iyo ceergaabo guul bay joogtaa nin weyn baana weliba aqoon ula dagaalku wuxuu dadka yeelaabaa garanaya kii ka talin waaya iyo kii qaata taladaaba waa habaryanaya wuxuu ka helaaba banu leeyahy haddiise colaad timaado ceergaabo ninkii joogi jiray baa joogaya ninka carruurtiisa ka qaxiya ee carruurtiisa bacadka u saara reer ceergaababa ka dhaqaalihiisa ku burburiya reer ceergaababa ka nin kale oo uga fogi ugu taliya reer ceergaabama ceergaabo waxa iskale ninka nabaddeeda ka shaqeeya yani colaadeeda ka shaqeyn weriyo soo dhaweynaya adigiyo tvgaaga ama bejkaaga ama maaragtay shaqaalahagaba horta dalku waa nabadgeliyo ceergaabo waxbaa ka horreysiinaya ceergaabo way noo dambeynaysaa marka hore jamhuuriyadda somaliland iyo dadka ku dhaqan mid u dhashay iyo midaan u dhalanba ummadda islaamka ee degan dhammaantood waa u hambalyeynaya doorashadii ay ka soo baxeen muddadii dheerada mucaaradka waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi sida iyo hanaanka uu u wado dhismaha dowladda aad baan ugu hambalyeynaya degenaanshaha dadkii oo la walaaleeyey qaaraan ku jiri jirin oo la soo geliyey weli waa la wadaa aad iyo aad baan horta ugu mahad celinayaa waxaan arkayaa bayjadka gaalooyinka cid waliba soo dhaweynayso in dowladdaas ictiraaf hesho soomaaliya calaashana electionkii waxaan kaloo hambalyo isagana siinayaa madaxweynihii doorashadan qabtay iyo tii horeba ee saarka ahayd debcay nugleysay mucaaradadu ee oggolaaday inuu doorashadaas saarkaa qabtay uu ridayo madaxtooyada ee laga guulaystay aqbalay isagana waa hambalyeynaya intaasaan ku dhaafaya ciidamada dalka aad baan ugu hambalyeynaya siday shaqadooda u qabsadeen ciidamada kala duwan orag intaa marka ka imaado ciidamada qaranku iyagoo difaacay cadowga ku soo duulay dalka iyagoo difaacay wax sanduuq ka rabshan ayaa haddana ceergaabo dagaal ka bilowday ummadda reer ceergaabo harena waanu sheegay anugu ummadda reer ceergaabo inta wada degnay nabad baad ku deeqda ceergaabo haddiise colaad timaado ceergaabo ninkii joogi jiray baa joogaya ninka carruurtiisa ka qaxiya ee carruurtiisa bacadka u saara reer ceergaababa ka dhaqaalihiisa ku burburiya reer ceergaababa ka nin kale oo uga fogi ugu taliya reer ceergaabama ceergaabo waxa iskale ninka nabaddeeda ka shaqeeya yani colaadeeda ka shaqeyn ceergaabo waa magaalo ummad badan ay taalo ceergaabo waxaa la odhan karaa ceergaabo meel halkan oo soomaali weyn la odhan jiro hargeysa ku taalay yaa ceergaabo waa nooca ceergaabo waa lagu kala badan yahay deegaanka cid bay u soo horreysay laakiin dadku waa galay waana magaalana qolo ma yeelato laakiin ceergaabo ninkii ka qaxaa dee isagaa ka qaxay ku soo noqon maayo ilaa dee garto nabad waxay tahay ilaa uu garto nabad waxay tahay ninkii laascanood ku dhashay hawdkeeda ee ceergaabada
وكدولية حقوق ماله كسر نقول يقرنا تاس وين صح عرقاوة دقنت عرقاوة ويدقنت هاي إذا ما دي ويكبحين دفاع هراء الإسكوليسترا زيادة قال كلنا هو كسر نقول ده وحنا يلاهو جوش ونوات بعده ويجنس نوعي ماذا هذا سومالي نقول بيشوفه هذا سومالي عرقاوة نقول بيشوفه ninka marra garow cararaya marra u soo cararaya u soo cararaya ceergaabo ee aan deegaanka ku ahayn ayuunba ka deegaanka ku ah ee bandarada dhaadheer ku leh ee isbeerbaadhada ku leh barakicinaya intaasaan iyadan ku koobaya wixii su'aalay weydiiso way generaal dad badan baa dabcan markay ku daawadaan isweydiin karaa magaalada waxaa degan ceergaabo dad isdhalay oo ehela oo magaalada in badan deganaa nabadooda ay dowladnimada Soomaaliland ka horeysay kala saxeexdeen ma la soo karaa Siciid Cawil Caar dadkii uu doonaya in maanta uu nabadoodii uu ku ciyaaro iyagu isku diro anigu diraarabay ilaahay gama dhigin nin weyn bana waliba aqoon u la dagaalku wuxuu dadka yeelaaba garanaya nin wax haysta wixiisu ka saaraa nin caruur dhalayna caruurtiisu ka saaraa nin guri degan oo beedkiisa ku jirana uu ka saara dagaalku intaas oo dhibaato leeyahay ka bilaaba sheegaya ka bilaaba ayaa sheegaya waxaan kala aqaanaa dagaalka halka laga soo qaaday khasaaraha uu keeni karo waan garan karayaa waxaan garan karayaa dagaalka hayaanka loo galo geediga fog loo galo iyo dhibaatada keeno way dadka deegaanka ceergaabo degan fariinta u diraysaa maxay waxaan leeyahay nabad bay idinku deeqdaa nabad ayay idinku deeqdaa iyo wax la walaaan inta ka taliya kii ka talin waaya iyo kii qaata taladaaba waa baryeelaya wuxuu ka helaa buu leeyahay